arrimahaani haddaad karahaysatid oo aad necab tahay xanuun ruuxiya iyo shaydaankii khaadimka u ahaa baa kugu dhex nool, baa jirkaada ku jira, baa noloshaada kharibay, baa dabeecadaada bedelay, baa dhiiggaada dhuuqaya. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سو دhowaada walaalaha CF bulsho ku soo dhowaada muuqaalkan. Arrimaha kan haddii aad necab tahay oo aanan lagu maqashin karin waqtiyadanna ay ku soo galaan kadibna aad xanuunsanayso oo aad isnacaysid, caroonaysid, xanaaqayso, dabeecadaadu isbedelayso, waxaan kuu sheegayaa inaad xanuunsan tahay. xanuunkana uusan ahayn xanuun sharoobo lagu daaweyn karo iyo mid faleenba lagu daaweyn karo iyo mid irbad iyo kaniini kala daaweyn karaa ma ahan. waa xanuun ruuxiya waay. waa xanuun ruuxiya oo xasad iyo il ka bilaabmay kadibna shayaadiintu isku kaabahaysteen. xanuun kastoo ruuxiya midku doona ha noqda haddii uu kugu dhaco, tusaale oo kale il baa kugu dhacday cayuun ah, xasadku waxba kuuma jiro, sixirku waxba kuuma jiro, shaydaanku waxba kuuma jiro, jirkaadi waa la sahansaday. jirkaada haddii la sahansadana waxa kale iisi bay noqonaysaa mar haddii difaacaada hore lasoo jabsaday. sidaa darteed dad badanoo waxaa jira aan la maqashin karin ashyaadan aan idinla wadaagayo. normal ha u qaadan arrintaas, ma ahan arrintaasi arrin caadi ah, arrin la dhayalsan kara maahan. waad xanuunsantahay, ilaah baan kugu dhaarshaysa dabiib, qur-aanka isku dabiib oo ruqyada isku dabiib oo isla tacaal, naftaada la tacaal insha allahu tacaala. qodobka koowaad waxa weeye haddaad necib tahay iyo maalinta jumcada ah. ma dad baa jira maalinta jumcada necib? haa, bal xanuunsada maalinta jumcada ah. maalinta jumcada ah qofka xanuunsani ee xanuunka ruuxiga qaba isbedel baa ku yimaada jirkiisa iyo dabeecadiisa iyo maskaxdiisa, wuu xanuunsanayaa. si caadiyana maalintaa waama necib yahayba. maalintii maalmaha ugu fadliga badnayd, maalintii qof kastoo muslima ku farxiyey, maalintii la ducaysanayey, maalintii ay saacatul ijaaba ku jirtay, maalintaas qofkaan hadduu karahaysanaya ka war. yowmuljumca ma necab tahay? ma karahaysataa maalintaa maxay kuugu soo gashay? ma isdhahdaa? ma xanuunsataa maalintaa markay soo gasho? nacaybka aan ka warramayn ma aha nacayb diini aad u necab tahay, laakiin ka yowmuljumuca waayo waad xanuunsanaysaa. maalintay soo dhawaato beri oo kale jumco la dhahayo waad murugoonaysaa, waayo beri xanuun baa kuu bilaabmaya. dadka saas waa jira, waana dhoobayihin boqolaal. in badanoo ka midana markaanu la tacaalay ilaahay waa ka shaafiyey. maalintaasay maalmaha ugu jecel yihiinoo ay leeyihiin awraad iyo adkaar u gaaro qur-aanka iyo adkaarta ka mid ah. maalinta jumcada haddaad necab tahay, maalinta ciidda ah, labada ciidood ciideynka haddaad necab tahay ayagana oo aan lagugu karayn, oo iska daa inaad maalintaa baxdid oo soo tukato muslimiinta ka qayb gashid isu soo baxeedee gurigaad isku soo xiraysaa mar ribaad leedahay ma baxayo. waa maalintii xataa gabdhaha caadada qaba iyo kuwa yararka guriga laga soo saaro say dacwatul muslimiin allabariga muslimiinta uga soo qayb galaan oo barakada u gaarto la soo saari jiray. waay maalinta haddaad necab tahay, karaahaysanayso, xanuunsanaysid oo madaxu ku xanuunayo oo dadka tiradabood meesha jooga aad dhibsanaysid, waa xanuunsan tahay. xasad iyo sixir iyo il iyo shaydaan khaadim u ah baa ku dhex jiifa. waxaa xigo oo saddexeeya aadaanka. adinkaba haddaad necab tahay, haddii la adimaba aad xanuunsanayso, madaxu ku xanuunayo, dhagaha aad qabsanaysid, aadaanka yaa necab oo ka carara sida rasuulkeenu inoo sheegay. shaydaan baa qofkaa ku dhex nool, xanuun baa ku dhex nool, sixirka kii khaadimka u ahaa baa ku dhex nool haddaad aadaanka dhibsanaysid. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay markii la adimo shaydaan wuu cararaa asagoo bus iyo neef isku qarinayo, isku dhagatariisuusa aadaanka u maqal. markii la aqimo sidoo kale wuu soo noqdo. markii la adimo ilaa khanaase waa sii ordi, wuu soo ordi. qofku jaanis ka helo dalaq dhahaayo dhibaato u sababa. marka aadaanka waa dhibsadaa, shaydaankii baa marka kugu jira. shaydaankii qaadimka sixirka waa shaydaankii xaasidkaha baa ku dhex fadhiya. aadaankana haddaad dhibsanaysid ama madaxu ku xanuunaya haddaad aadaan maqashid. midka afraadee waxa weeye waa sheekh, nin culimo ah ama culimadaba haddaad necab tahay, meelayga qor waxaasoo dhan diiwaan geli. xaqiiqan kaala hadlaya, ma ahan wadaadkan ooma nicibid khalad oo ku hadlay iyo wax iyo isaga maaragtay khaas u ah oo sameeyay, maya ooma nicibid. laakiin ka sheekh ahaan
يعني إنه شيخ قف كان يهي إنه أهل الدين يهي إنه وداد يهي إنه محاضرين إنه كلمة وناكسن سوتش يدين يا كل بي سبا وحاسا كل بي يبا وحكستو الدين حرير لا كل بي مدحك حنون يا واد حنوسن إسا إيقاد دافو حان قف حنوسن قف كاس حنون روحي يا بوقبا هدي أد وداد كبدي بسنيس أما دينا عكلا وداد ودما باهمبا مد خاصة بنعبته ولقي إنه وحبا اسكو مين قبسن كما يقان أدنى ما تقاني إلا شاشتنا كاركت مويان ولقين كل كعس من ده ولقين وحبا اسكو مين قبسن وح إذا دحمرينا ما تشرا وح وقول لما شيء كرتنا ملهن هدنا أدون كادو نعبته ما دقي سنكرتي هذا الكسادات مقيسات كعرسة خاصة هادو رقية ضي هولها عن كنت تعلق بحنو صمت شيطان وكأدجيه أو دبسنا يه أمباكو جرا حنون كاسا كود حتيفة قضب ككلا وحويه دبسيجا نظافة أما در عصب إن الحرتيد أو در كإسكب الدشيد وادبسنيسا در عصب بالجو كينيا تذكرات سيسينيسا ما باستعمال سيد بقى نظافة دي وادبسنيسا عادي هل كان المرأة اسكودنيسا سيد هذا عادي كتاه نظافة دي وادبسنيسا حدي در عصب سوق جديته أما الجو كين الجو سو قدنا وسيجود بنيسا أما محرنيسيد هذا وقفك حنوسا xanuunada ruuxiga la il daran weey waxa qofkaasi jirkiisa ku nool ayaa waxay sababayaan inuu qofkani ashiyaadan karaahaysto arrimahaani haddaad karaahaysid oo aad neceb tahay xanuun ruuxiya iyo shaydaankii khaadimka u ahaa baa kugu dhex nool baa jirkaada ku jira baa noloshaada kharibay baa dabeecadaada bedelay baa dhiiggaada dhuuqaya iska daawe adinka ciida جمعة الشيخ أهل الدين كأذن عبتهاي إن أهل الدين أهل القرآن يهين درت هذا أظن عبتهاي إن النظافة دي ينلاشي يدرك عصبة الجوصة قد آذن سمينين بآذن حرنين ب هل كاس محاكاة دلنا يا مركز أشياء أدبستي إن تفعل لك لكل دقائق جوني صعد بعد نقوليسا كليك بعد نولانيسا leerka in lagu shido qolka aad jeclaanaysaa ama cagsiga noqonaysaa leerka in laga damiyo leerka ku dhibayo mugdiga aad jeclaanaysaa hadba shaydaanka iyo xanuunka ku haya noociisa ay ku xiranta mar waa kululaanaysaa ayadoo carradu qabow tahay mar waad qabow baa tahay ayadoo carradu kulayl tahay waad xanaaqaysaa oo waad karaysaa adoon waxba lagu dhimin lugaha ku karayo ku huraya jirkaada waxba ku dhex warwareegaya oo ku dhex socsoconaya madaxa lagugu dhufanaya qac xanuun baabiya iska daba wada goonja ka ku jabaya haddaad u damacday inaad quraan akhrisidna cunaha lagu qabanaya codkiiba ku kharimaya indhihiiba ku xanuunaya markaad damacday quraan inaad akhrisid hawlahi guriga haddaad haweenay tahayna waaba laga mashquuliyaba telefoon baad iska haysataa sariirta baad iska dul saaran tahay caruurti ka warama wax ma loo kariye halkaas aad ka hadlaysaa waad siiftaa mar telefoon noloshii dhan baa ku soo oodmatay waxaad ku jirtaa xayndaab shayaadiin iyo xanuuna ay kugu xirteen waa halista ugu weyn ee bulshada maanta haysata وهاليستا ugu weyn ee qoysaska maanta burburiyay وهاليستا ugu weyn ee laba isjecel kala geysay وهاليستا ugu weyn ee ubadkan baylahada sababay وهاليستا ugu weyn dhalaan badan inay waalidkooda caasi ku noqdaan وهاليستا ugu weyn xuquuq badan in meesha ka baxdo وهاليستا ugu weyn maskaxda inay waayaan dad badan وهاليستا ugu weyn mustaqbalkooda inuu ciriiri galo dad badan وهاليستا ugu weyn ee dad badan ay qarsanayaan laakiin halka markaad korka arkaysid aad caadi moodaysid halista ugu weyn weyn halistaasna ka hortaga ashyaadaas waxaanay dhalayaan ku sharaxay kadib waa sii tatawuraya arintu way sii tatawurin xanuunadu midba midbu sii biirsanaya aqligaada iyo maskaxdaada waxa ku qufulan dhakhtarka tag dhakhtar hebel u tag isbitaalka maanta u socda daawo lagu soo siinay wax ay ku tarayaan malaha daawo baad ku wada miiskaada iyo boorsadaada iyo xafiiskaada iyo waxa oo daawo ka buuxda daawooyin baa iska daba wada hebel baa kula talinay heblaaya kula talinaysa dhakhtar hebel oo fiican baa halka jira waad aadaysaa mid kale kula talinay dhakhtar kale oo halka jooga waad aadaysaa saasaad iskaga daba meeraysanaysaa xanuunkana jirkaada ku faafaya xanuunkana uu ku sii taxakumaya adiga dhan kontaroolkaada waa la hayaa noloshaadu waxay noqonaysaa nolol adiga dhan kar aad dareemaysid aan noloshaada ka jirin ba xaqiiq ahaan laakiin xanuunadan ku sababay marka quraanka ilaahay oo carara fafirru ila allah ilaahay oo carara xaqiis yaqiintuna waa muhiim inaad aamintid taas oo markaad aamintid ilaahay wuxuu ku rumaynayaa daawadaadii quraanka qulubtu daaweeya oo laabtu daaweeya oo naftu daaweeya oo jirku daaweeya
ونلاشا كوغو حيران دنبو داوية قرآنكو داوة رنتا دبتا اللهوبا واساقا marka mid kale oo tijaabo iyo bili aadan samayskiisa marka hore baa kullu gooy kaasho dhima lahan laakiin ilaahay uu kaasho subhanahu wa ta'ala inuu ilaahay daawo ku dhaxgeliyo ilaahay waxaan weydiinaynaa adinka iyo walaalaha kale ee dhiban in ilaahay shaafiyo xanuunka iyo cudurrada uu ka dulqaado tawfiiqdana ilaahay noo wada waafajiyo walaalaha kale uu sii sheer garaya muuqaalkan like dhahaya wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh